السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إدلانتي مداود يلا كسر دوادا وروحنا ذكينا جودها الدلك يدافع عالم كويدن كجيم منيا تيفيجا مدح بنانا ري تيفي وركا وحنا لسه عسين دونا أنا وعبد شكور محمد علي حتى بقى ضبط وركا وجود دور كورونا اللي وحكم الداود يا madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ka qayb galay shirweynaha haweenka ee doorashooyinka dalka ururka qareenada Somaliland oo sheegay in guddi madax banaan loo saaro arinta ku saabsan cabashada ay ka cabanayaan booliska Somaliland hooda gareys iyo waliba hooyadeed wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Somaliland oo tababar soo xiray qaar ka mid ah macallimiinta madaarista ee Somaliland beesha caalamka guddiga doorashada xisbiyada iyo waliba ururada bulshada oo shir ku yeeshay magaalada Hargeysa suuqyada magaalada Boosaaso oo dib u bilaabay qaadashada lacagta shilin Soomaaliga midowga musharaxiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qoraal u diray beesha caalamka isla markaana soo bandhigay shuruudo adag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door corona markana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ka qayb galay shirweynaha haweenka ee doorashooyinka dalka kulankan uu ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa ahaa shirweynaha haweenka ee doorashooyinka waxaana ujeedadiisu ahayd mid lagu lafagurayay caqabadaha hortaagan haweenka hanka musharaxnimo leh ee doonaya in ay u tartamaan doorashooyinka dalka ku soo foodle isla markaana ay soo galaan golayaasha sharci dejinta dalka shirweynahan oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo shaqagelinta iyo arrimaha bulshada waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin iyo marti sharaf iyo madax kala duwan oo lagu soo casuumay danaya arrimaha dimuqraadiyadda iyo horumarka Somaliland haweenka kala socday nagaada bahda dhaqanka iyo kuwa u taagan doorashooyinka dalka soo socday iyo mas'uuliyiin kale Saciid Axmed Jibriil oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka waramay ujeedada shirweynaha haweenka ee doorashooyinka Somaliland ee magaalada Hargeysa ka furmay ku soo mahadnaqaya anigu waxa kaliya oo isu taagay in aan idinku soo dhaweeyo shirweynaha haweenka ee doorashooyinka kaasoo ah aan kaga tashanayno sidii looga hor qaadi lahaa caqabadaha ku xeeran ama hortaagan gabdhuhu inay soo galaan golayaasha looga taliyo bulshada sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland mudane Cabdirashiid Somaliland muddadii ay jirtay tan iyo markii lagu dhawaaqay dib u soo noqoshada madaxbannaanida Somaliland waxay si tallaabo ah u dhisaysay nidaamkeeda dimuqraadiyadda ansixintii dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland kadib waxa loo baxay safar xagga dimuqraadiyadda ah safarkaasi wuxuu horseeday in Somaliland ay magac weyn ku hesho dhinaca dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka inkastoo ay dadaalo fara badan socdaan waxa haddana muuqda warwar badan oo ku aadan tirada haweenka tartami doonta doorashooyinkan hadda ee aynu gudagalayno oo la filayo inay ka yaraato tirooyinkii hore ee sanadkii hore u tartamay doorashooyinka inkastoo ay dadaalo fara badan socdaan waxa haddana muuqda warwar badan oo ku aadan tirada haweenka tartami doonta doorashooyinkan hadda ee aynu gudagalayno oo la filayo inay ka yaraato tirooyinkii hore ee sanadkii hore u tartamay doorashooyinka duruufo badan ayaa haweenka haysta oo ka hor taagan golayaasha qaranka ee ay ka mid noqdaan oo ay ka mid yihiin arrimaha dhaqanka ee bulshadeenna ee arrimaha dhaqaalaha iyo xeerarkeena doorashooyinka oo aan ahayn xeerar dhiiri gelinaya sidii caqabadaha loo qaadi lahaa hortaagan haweenka dalal badan baa adduunyada nala mid ah oo geeska Afrika iyo adduunyada ku yaala dalalka Djibouti Algeria Angola Burundi Cameroon iyo dalalka kale aan jaarka nahay dhamaantood waxay ansixiyeen haweenku inay helaan qoonto xeerarka doorashooyinkooda ay sheegayaan maayarka magaalada Berbera gudoomiye ku-xigeenka komishinka xuquuqul insaanka qaranka Somaliland iyo xubin ku hadlaysay afka haweenka ayaa soo dhaweeyay shirweynahan ka furmay magaalada Hargeysa ee lagaga hadlayo haweenka iyo doorashooyinka dalka ku soo foodle kulli waxay noo tahay farxad anaga inaan ka soo qayb galno shirkan oo runtii kale muhiimadiisu tahay
waa laga wada dharigsan yahay mushkiladaha haweenka haysta laakiin in noqdo mid waxtar u leh haweenka anu waxaan leeyahay wax kala garamaya waa idiin ducaynaynaa ilaahay baan idinka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala isagaa kownkan iskale idiin fudaydiyo waxaana la doonayaa in si runa haweenka haddii la doonayo inay soo baxaan in si runa lasu garabta waxay hayday go'aanada halka lagu goynayo ay ka maqan yihiin taasina ay ugu wacan tahay sidaa og tihiin dee dhaqan ay tahay in laga gudbo oo aan ilaa imikadaa weli laga gudbin maanta halkan uga soo jeediyo hoggaamiye dhaqameedyada soo sharaxay hablaha ee ku dhiiraday inay habla inoo soo sharaxaan ayaan maanta maxay hayday maanta halkaasi salaan uga soo jeedinaya sharaf badan boqolkiiba 70 Soomaaliland inaga ah marka dumarka waxaan ka codsanayaa inaadin mar walba oran dumarka hal caawiye caawo isku filanahay muxuu ahaay in lagu iscaawino isu soo garab taagna hablaha musharaxiinta waxaad ogaataan hablaha maanta soo baxa inay maanta wado fiican inoo furayaan ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana uu ka hadlay kaalinta iyo muhiimadda ay siisay xukuumadda Soomaaliland haweenka maanta waxa kale isugu yeedhay in dhammaanteen ka wada qayb qaadano in haweenkeena oo ognahay lafdabarta dhaqaale iyo lafdabarta bulsho ee Soomaaliland aan ognahay inay yihiin in sidee uga qayb qaadan lahaayeen talooyinka qaranka aynu ka wada shaqeyno haddaynu nahay madax dhaqameed haddaynu nahay aqoon-yahan haddaynu nahay siyaasiyiin cid kastoo inaga mid ah in hawshaasi aynu mas-uuliyada wada jira ka qaadano ayaa looga baahan yahay ka xukuumad ahaan dadaalkeeda waan ku jirnaa beesha caalamka iyo saaxiibadeena nagala taageeraan dimuqraadiyadduna aad iyo aad bay runtii nogala shaqeeyeen sidii haweenka loogu dhiirigelin lahaa inay ka qayb qaataan ama loo dooran lahaa ama isku dooran lahaayeen tii ugu weyneeda maarta ku dadaalna waxay ahayd in wax kastoo cusub wuxuu caqabadihiisa iyo dhibaatooyinkiisu leeyahay iyo barashadiisa tii ugu weyneed waxay ahayd arrintii kootada ee loo asteeyey haweenka iyo dadka laga tiro badan yahay sababta waxaa loo jeeday in lagu baro inay soo galaan oo isdoortaan labadaa guruuba inay isdoortaan adduunyaduna siyaabo badan bay u soo gelisay siyaasadda haweenka dalalka dimuqraadiyadda haystay dhowrka boqolee sannadood sideennaanba iyagaba ay waqti muddo ku soo qaadatay inay muddo dheer qaadato sidii haweenka loo soo gelin lahaa talada dalka waxay markaaynu samaynahayd in kooto loo sameeyo oo ay maanta iyo gobol walba tiro gaara loo xadido tirada ay ku tartamaan tirada inta ugu sarreysaa soo baxda ururka qareennada Soomaaliland oo sheegay in guddi madax bannaan loo saaro arrinta ku saabsan cabashada ay ka cabanayaan booliska Soomaaliland hooda gareys iyo waliba hooyadeed waxaan halka maanta isugu nimay joognaa xafiiskii ururka qareennada oo inala joogo xogiyihii guud ururka qareennada arrinka la xiriira cabasho ka timi saliga quraadheer runtii muddo ayaa qareennada Soomaaliland arrimaha indheyndeynayeen inuu doonayeen in xogteeda ogaadaan oo aanay hore ugu digdigin ka hadalkeeda maadaama aan ogsoonahay in booliiskuna shaqo hayo dadweynaha iyo booliiskuna mararka qaar ka hor iman karaan balan ogaano in khalad dhacay in kale ayaan runtii u sugaynay intaas oo dhan markii aan runtii baarnay waxa noo soo baxday in wixii ku dhacay hooda garaysay iyo hooyadeeda u baahan tahay baaritaan madax bannaan in lagu sameeyo oo cidda ka hadli kartay go'aan ka gaari kartaa inaanay ahayn booliiskii laga cabanayay oo hadalka booliisku jeediyaan oo ahayn hadal qancin kara dadweynaha maadaama uu yahay ciddii laga cabanayay cidda laga cabanayay iyadu inaanay odhan karin annagaa baarnay oo kolkaa wax eeda ma lihiin marka waxaan ku soo jeedinay in la sameeyo guddi madax bannaan oo dad muxtaram reer Soomaaliland ku jiraan oo aqoon booliis iyo aqoon sharci leh oo ariga ka gungaara waxaan soo jeedinaa laba sababood oo muhiim ah oo marka koowaad anagu qareenaan nahay ururka qareennada 100 qof waa ka tirsan haddana maanta ma garanayno meel aan u diro hooda oo ku oran karo wadada sharci baa la maraayo oo booliiska laga cawdaayo soo mar ma jirto waayo waa ogeedeen xeerkii booliiska muddo 10 sanadood laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax bannaan cabashada lagu sameeyay waa laga saaray tii waxay keentay markaa in aan sarkaalka booliiska meel looga caban karo shaqo haya booliisku dadku uu ku geefi kara isagana waa lagu geefi kara waxa muhiim ah in la helo meel ka madax bannaan booliisku la tagi karo laakiin maanta waxa la leeyahay dad booliiska cabatay isla booliisku baad u tagaysa taasina meel adduunka kama dhacdo qofkii dibta laga sheeganayay in isaga la yiraahdo ayaa gartan qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa kolka in dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qayliyaan marka saddex mas'alo waaweyn baan soo jeedinay marka koowaad arrinka hooda garaysi hooyadeed in guddi madax bannaan loo saaro arrinka ka gungaara oo koob laba intiba habeen booliiska lagu sameeyo saliya baara
oo saddex mas'uulo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliska loo shaqaalaysiiyo si dadka booliska loo qorayaa inuu noqdaan dad ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dadnimada yaqaano dadka ixtiraama laba in la sameeyo meel booliska laga caban karo oo ka madax bannaan booliska oo dadweynaha booliska wax ka tirsanaya u tagi karaan kolka hadii dadweynahaasi waxay sheeganayaan sax yihiin ay qaato hadii laga gardariyay booliskana yiraahdo waa laga gardariyay laga tago ta saddexaadna waxa weeye booliska lagu soo celiyo maxkamadaha madaniga oo maxkamadaha militariga laga daayo waayo hadii maxkamadaha militariga loo daayo waxay noqonaysaa booliska inuu shaqeeyo sidii militariga booliskii military ma aha dad ay la macaamilaya runtii waxa aad iyo aad looga xumaado in qof adeeg booliska u soo doontay saldhigyada booliska inay fahmaan inay adeeg bixiyaal yihiin oo aanay cisbitaalka waxba ka duwaneyn qofka bini'aadamka reer Soomaaliland cadaalad buu ka soo doonanaya adeeg amni qofkii ka soo doonanaya adeeg amni in lagu qabsado rabshadi ka dhacdo gaariga meesha dhigatay baa khaldanayd ma ahayn booliska shaqadooda ay tahay in dadka gawaarida halka dhiganayaan meel u diyaariyaan iyagoo tay dadka u yimaada biyaha cabaan iyo meel ay fadhiistaan oo nadiif oo wanaagsan inay helaan inay soo qaataan oo isu fahmaan adeeg bixiyaal yihiin jeelal dadku ku xirxiran yihiin oo dhib leh inaanay arag booliska anagu hadda qareenada dad xuquuqsanka muddo dheer baan ku ololinay waa ogeydin hadda muddo ku dhow 2 sanaba waan ka aamusnay sababtu maxay tahay waxaanu u qaadanay maadaama hoggaan cusub yihiin fursad la siiyo wax ku bedeli karo oo aan markaaba maagtay lagu qayqaylin laakiin cabashooyinkeenu haynin soo gaaray waxba iska ma bedelin kuwii horaan haynin wada garays kaligeedna maaha iyadoo qof saxaafadda taqaano hadli kartaa hay'ad dadaan hadli karin cabashadooduna soo gaadhaana oo badanina way jiraan marka waxaan ka codsanaynaa hoggaanka booliska iyo madaxtooyada oo shaqadeeda koobaad tahay in institution kan isbedel lagu sameeyo isbedelka marka lagu sameeyo anagu dad hal leeriyo dad hala baxsado ma lihin institution hay'ad ahaan way wax laga bedelaa oo noqoto hay'ad madaxweynaha booliska adduunka u eg xitaa say u sameysantay qaab dhismeedku waa qaab dhismeedkii Maxamed Siyaad Barre 1970 kii sameeyay booliskani sidoo ahaan jiray 1960kii ilaa 1960kii isu maanta yahay waa kala jaad hadda xitaa wadamada inagu dhow Kenya iyo Uganda eegtiisku si uma sameysmo marka anigu hadalka soo koobaya waxaga guud uga baxaya waxaan doonayaa inaan ka codsano dadka ay arrimahan khuseeyo in ka baaritaan madax bannaan lagu sameeyo in booliska dib u habeyn lagu sameeyo iyo in aan marka qof bini'aadan iyo hay'ad dawladeed ka cawdo aan markiiba qofka la sariiran oo la oranadaan ku xidhaynaay la fahmo in la idinka caban karo wax la idinka sheegi karo la idin dhaliili karo la idinku mudaharaadi waxaanu halkan maanta idinku yeedhnay inaanu ka hadalno halkan oo xafiiskii ururka qarinada Soomaaliland ee Soola inaanu ka hadalno dhacdadii Hooda Grace iyo hooyada Tuleekha runtii dhacdadaasi muddo aanu ka aamusnayn ururka qarinadu ka aamusnaayeen wax kale looga maanaan aamusnayn waxa aanu jaalis markii hore siineynay madaxda booliska iyo qaabkay uga hadasheen sugeynay waxa kale oo anigu aanu ku hawlanay ururka qareenadu waa garsoorayaal oo kale inaanu marka hore dhacdada si qoto dheer u soo baadhno habeen saddexaadkii Hooda Grace gurigaan ku booqanay hooyadeed runtii sawirro marka laga yimaado kuwa wajigeeda ku yaala waxa iyaguna ka culus oo qof kasta ka naxaya nabarrada yeelada hooyadeed ku yaala waxa kale oo iyaguna laga naxaya oo qof kasta oo arka oo halkan cadeynteeda aan ku haynaa nabarrada qarsoon ee jirka kaga yaala hooyadeed waa qof waayeela gacanta kor uma qaadi karto arrintaasi jaaniska aanu booliska siinay waxa uu noqday dhacdadii ay dhammaantiin wada taagneedeen ee booliskiina iyagu isu garnaqaan inoona soo jawaabaan weliba inoogu daraan inay inoo hanjabaan waxaanu leenahay ka urur qareen ahaan dhacdadaasi siday u dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waanaanu cambaaraynaynaa boolisku waa booliskeenii waxayse tahay inay boolisku fahmaan shaqada ay hayaan inay cidda u hayaan ay tahay muwaadiniinta shaqada laga rabaana ay tahay inay noqoto shaqo hufan ma aha in la yiraahdo dhaxantii habeenkii noo taagiin wax lagama sheegi karo xaasha anigu qofkii shacabka ahaa ee cashuur bixiyaha ay ku jireen baan ahay waxa markaa tahay in dhacdadaasi boolisku falkaasi maanta loo dhacay in cid allaale cidii ka dambeysay waxaanu ka urur ahaan ku baaqaynaa in cid allaale cidii ka dambeysay mas'uuliyadeeda lagu qaado oo cadaaladda la horgeeyo marka intaasi laga yimaado anagu qareen ahaan maalin walba waan la macaamilaynaa booliskii maalin walba maxkamadii baan isku imanaa shacabka Soomaaliland waa ka marag waxa caado noqotay askariga booliska haddii qof shacab isku dhacaan inta booliska wada dhinac taagan in mar gacanta wada saaraan ma garanay sharcigaasi meel ay ka keeneen waa sharci darro aad u weyn qofka shacaba laba qof oo shacab ayaan sharcigu ogoleen bayna cid isku tagaan wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland oo tababar soo xiray qaar ka mid ah macallimiinta madaarista ee Soomaaliland
wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa magaalada Hargeysa ku soo gabagabeeyay tababar muddo 2 cisho u socday macallimiinta madrasadaha Qur'aanka Kariimka ah ee Jamciyadda Iqra waxaana tababarkan iska kaashaday wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamciyaddaasi Iqra muddada socday tababarkaasi waxaa la siiyay macallimiintaasi casharo iyo aqoon kor lagu qaadayo tayada aqooneed ee macallimiinta madrasadaha Jamciyadda Iqra waxaana ay ka koobnaayeen in ka badan 300 oo macallimiin oo ka kala socday Iqra gudoomiyaha Jamciyadda Iqra Sheekh Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa ka waramay aqoon kororsigaasi dowladan haddii aan u imaado waxaa ka qayb galay macallimiin tiradoodu ay kor u dhaafayso 320 macallin waxaana halkan ay ku qaateen duruus runtii camalka ay hayaan aad uga caawinaya waxaana macallimiinta ka codsanayaa cilmiga ay barteen iyo tababarkaas inay dhaqan geliyaan midhaheedana laga arko madaariska ay gacanta ku hayaan waxaana lagu bushaaraynayaa oo kale macallimiinta in maktabku uu soo kordhiyay sanadkan isagoo macallimiinta mar walba horumarintooda ka shaqaynaya in la sameeyay manax daraasiya oo jaamacadaha waxa weeyaan dalka macallimiin waxa weeyaan looga howlgeli doonta oo aqoonta ka soo xambaari doonta maktabku uu diyaariyay wixii macluumaadana uu kala xidhiidhi doono maktabka sidoo kale ardaydaas in loo sameeyay manax daraasiya oo iyagana jaamacaadka iyo maxaayidda shariicada lagu baranayo waxa weeyaan iyaguna ay cilmiga ka soo baran doonaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan inoo weydiinayaa inuu horumar iyo najaax iyo camalka aynu hayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu asturo qaar ka mid ah macallimiintii ka faa'iideystay tababarkaasi ayaa u mahadceliyay Jamciyadda Iqra iyo wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado aqoonta macallimiinta waxbaraya barbaarta iyo daayarta reer Soomaaliland farxad bay tahay anigoo runtii aad iyo aad u khushuucsan inaan ka soo qayb galo gabagabadii aqoonsi wadaarsigii iyo tababarkii loo sameeyey macallimiinta taxfiidka qur-aanka ama madaarista qur-aaniga ah guud ahaan iyo macaahidda islaamiga ah ee hoos yimaada maktab al-Iqra iyo horumarinta macallimiinta waxbarashadu ma aha duruus la siiyo keliya laakiin waxbarashadu waa dhaqan waana tarbiya waxaa la odhan jiray berigii hore madaxayd wasaaradaha waxbarashada iyo barbaarinta ee la odhan jiray waxbarashada laakiin waxaad moodaa barbaarintii inaynu xoogaa gees marayno waxaan markaa ku boorin lahaa in dhallinyaradan runtii iyo maktabkuba ay ku dadaalaan sidii ay u fulin lahaayeen manhajka isla markaana ay uga qayb qaadan lahaayeen ilaalintiisa iyo haddii ay wax ku arkaan laftiisa maarata mulaaxadaad leh inay soo diyaareen way qofka maarata gudbinaya ayaa mulaaxado iyo wax ka arki kara marka insha Allah waxaan rajaynayaa in kulankeena dambe kan la midka ah idinkoo yacni qiimo badan u yeelay waxbarashadii lagu faraxsan yahay malcaamadaheenii inuu ilaahay naga dhigo kuwii kitaabka ilaahay kor yeela beesha caalamka guddida doorashada xisbiyada iyo weliba ururada bulshada oo shir ku yeeshay magaalada Hargeysa sida ka muuqata ajandaha inoo horyaala runtii gabadheeduna ay tahay soo dhaweyn waxaan kaga hadli doonaa dhowr qodob oo aad iyo aad muhiim ah oo ay ka mid yihiin warbixin ay soosaf ka soo saartay diiwaangelintii waddanka ka qabsootay sanadkan ku jirno horaantiisii oo runtii ka soo diyaarinay ilaa 600 oo goobood oo ay booqdeen goob joogayaasha maxalliga ah ee ay soosaf ku dhibaataysan ama u dirtay goobihii ay diiwaangelintu ka socotay waxaa kaloo aynu ku eegi doonaa axsaabta qaranku halkan nala joogay iyaguna inay nala wadaagaan kartidiyada ama shuruudaha ku xidhan musharaxiinta komishanka doorashooyinku waa mishiinka wada doorashooyinka dalka iyo diiwaangelinta sida ku cad xeerka doorashooyinka Soomaaliland waxay ka yimaadeen hanaanka beelaha ku dhisan iyadoo hadda xisbiya ay jiraan beesha caalamku waxay door laxaad ka qaadatay dhaqaalaha farsamada iyo dhiirigelinta hanaankan waxaan u mahadnaqayaa beesha caalamka xisbahan waxaan aad iyo aad farxad loo aynu ka soo qayb galno kulankan wada tashiga ku saabsan arrimaha doorashooyinka ka xisbahan wad ogtihiin in wax kasta oo inoo suurta gelinaya
inay doorashadu waqtigeedii qabsoonto tallaabo kasta oo ay arrintaas u tegeen ka xisbaaniya xukuumadaanba la qaaday aan ku faraxsannahay in si wanaagsan hawluhu socdaan waxaan bogaadinaynaa hawsha culus ay hayaan komishanka qaranka doorashooyinka waxaan xaggayga ka ballan qaadanaa in hawshaasi inay sida ugu wanaagsan madhadhaa inoogu qabsoonto dee doorashadan muddaynu sugayna tan baarlamaanka 16 sanood baynu sugaynay tanna 9 sanood baa la sugaya marka inaanu ka ilaalino way imanaysaa oo doorashooyin hore waanu soo gallay hiccups baa imanaya waxyaaba aan laga sii taxadirin oo marka hore guidelines loo sii sameeyay wax laga talagelin baa iman doona oo noqon doonto marka inuu qof ama dad gaar ah marka ay noqoto in la siiyo awoodinayo decision gaaraan decision-ka waxa ku gaaray waa inuu noqdo procedure soo jiray ama wax la soo maray doorasho imika oo soo wada maray marka intuu baynu wadnaa taana in la fududeeyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa international community-ga sida saraaxadda leh ay noo wareysteen iyo intaan u sheegnay haweeye waa doorasho iyo xalban filay Soomaaliya qabato taana waxay ka duwan tahay oo markii hore soo laba doorasho ay saarnay insha Allah ta'ala si kharash nooga yaadana saddexda mar baa saari doonaa ilaa madaxweynaha insha Allah ta'ala haweeye waxa hadda soo baxaya arrimo aan hore u soo bixi jirin waxa soo baxaya musharaxiinta la xiriirka soo baxaysa oo hore u dhici jirin musharax xisbiga socda oo xisbiga xilay waxay nagu cusub haddaanu nahay beesha caalamka waxaanu halkan u joognaa annagoo ah guddi taageeraysa hanaanka dimuqraadiyadda waxaanu mahad celinayaa Sonsor iyo komishanka sida ay u soo qabanqaabiyeen munaasabaddan iyo xisbiyada qaranka oo ka soo xaadiray iskaashi dhow oo dhexmara dhammaan daneeyayaasha doorashadu waxay muhiim u tahay qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah waxaana rajaynayaa in kulanno joogto ah ay dhinacyada dhex maraan si gaara su'aashaydu ugu socotaa saddexda xisbi qaran markii kootada la tuuray waxay heshiis ku gaadheen inay 18 dumar soo saari doonaan inay ugu yaraan gobol walba xabad laga soo saari doono saddexda xisbi ka soo saari doonaan oo 18 ku saa ku soo dhamaan doonto horta goboladiina kamaydaan soo saarin 18kii dumar ahaana maydaan soo saarin ta kale ee cabashada ah ee taalaana waxa weeyaan qofka musharaxa ah ee muwaadinka ah ee shuruudaha buuxinaya sababta waa gabadh loogu diidayo ee xisbiyada iyadoo ay wataan hablahaasi odayadoodii riixayaan maadaama qabaa'il iyo wax ku qaybsanaysaan sababta loo diiday ana waxaanu doonaynaa inaan noo cadaysaan sharciga Soomaaliland wuxuu dhigayaa qofka candidate-ka doonaya inuu ka noqdo baarlamaanka oo kale ama golaha deegaanka oo kale jir ahaan iyo maskax ahaanba waa inuu fayow yahay xeerkaasi waa xeer dadka naafada ah takooraya una diidaya inay xaqoodii helaan inay wax doortaan iyo in la doortaba sidaa daraaddeed waxaanu aad u codsan lahayn Soomaali ahaan in dhalinyaradana lagu soo daro oo dhalinyaradana laga daayo fiiga faraha badan ee aanay qaadi karayn suuqyada magaalada Boosaaso oo dib u bilaabay qaadashada lacagta shilin Soomaaliga maanta waxaan naloo sarifay lacagtii kaashka ahayd oo in badan taagneed oo dadka qaarkood xalba u laayeen aad bayna ugu mahadsan tahay cid walba oo ka qayb qaadatay iyo dawladaba dadka shacabka aan inay iyaguna fududeeyaan oo lacagta ay qaataan baan anigu kula talinayaa shakhsiyan waayo lacagtu waa tan kaliya oo shaqaynaysa qof markuu baahdo bacbi ah 0.1 ma diray magacaygu waxa weeye Lima Cabshis Faarax waxaan ahay daal kuurayay dhalinyarada daal kuuraya ku nool gobolka Bari lacagta kaashkaada Soomaaliga daal kuuraya saa ka faa'iideysanayo dawladdu u bedelaso waxaan daal kuurayay lacagaha shilin Soomaaliga daal kuuraya dib ku hayaan ama dadka daal kuuraya markasta dareemaya baahida inay la wadaagaan warbaahinta daal kuurayay waxay leedahay aniga halka waxaan u nimid lacagtii naloo sarifay kaashka ahayd oo kala socda 4 milyan iyo 200 iyo 4 milyan ma sha Allah barakallahu fi Soomaaliga waa soconaya
سلام بعديد ولا ليال ماشان ساك وأركتن وحكى دعها يعني عاد أرين فرحة له أيضا أيامها عكرناين إن صرفك صوماليا هذا أيو شقينا أيام سفر حله dadkiina aw niyad sami aw ku shaqaynayo rajaynayna inay maaragtay si wanaagsan oo firfircoon ay u shaqayn doonto wayna u shaqaynaysaa oo ay u gali doonto meheradaha iyo waxa weeye dukaamada iyo maclaarada dhammaanba si farxad ay u gali doonto aanu rajaynayno baynu hadda ku shaqaynaynaa 200 baa lagu sarrifayaa $100 xaaladuna hadda okay way kadib waxa ka noqonaysa ilaah waa ka warqaba laakiin hadda waa fiican waxaan joognaa suuqa sarifka lacagta kaashka ahayd muddo badan baa dhibi ka jidhay maanta se waa la qaadanayaa sariflayaashu way isu tageen oo system yar bay sameeyeen oo dadka ay $100 uga sarifayaan iyo qiimo aad u hooseeyo 4 milyan iyo gobolada laga soo maartay qaado iyo kaash badan oo meel ku xireysnaa oo la soo qaado way diideen oo waxay sameeyeen $100 qofka maalinta wuxuu shaqeeyo siiba dadka danyarta iyo qudaaraha iyo dukaanleyda yarka iyo waxaasay waxay sameeyeen in maanta u sarifaan midowga musharaxiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qoraal u diray beesha caalamka isla markaana soo bandhigay shuruudo adag kulan u dhaxeeya xubnaha midowga musharaxiinta iyo wakiilada beesha caalamka ayaa ku qabsoomay aalada Zoom-ka waxaana uu ahaa mid looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka kulanka ayaa si gaar ah waxaa looga hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka khilaafka ka jira doorashooyinka iyo sidii loogu gudbi lahaa maadaama aan weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa warqad u qoray wakiilada beesha caalamka iyaga oo ku soo bandhigay shuruudo dhowr ah oo ay qaarkood ay adag yihiin qoraalka oo ka kooban 2 bog ayaa waxaa ka mid ahaa shuruudaha ay soo bandhigeen in baaritaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday hotelka Maayida oo deganayeen 2 madaxweynayaal hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud rasaastii ciidamada dawladda ay ku fureen qaar ka mid ah musharaxiinta xilli ay ku banaanbaxayeen wadada gasha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho sidoo kale qoraalka midowga musharaxiinta waxa ay ku dalbadeen in madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu talada dalka ku wareejiyo golo qaran oo ku meel gaar ah iyo in heshiis degdeg ah laga gaaro arrinta Somaliland iyo arrinta gobolka Gado qodobada ay midowga musharaxiinta dalbadeen ayaa waxaa ka mid ah in ay si toos ah ugu qayb qaataan wadahadallada doorashooyinka qabashada shirarka ololaha iyo adeegsiga warbaahinta iyo qodobo kale midowga musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale dalbadeen in jadwalka doorashooyinka lagu soo saaro muddo 30 cisho gudahood ah sidoo kalena ay iscasilaan taliyaasha ciidamada militariga nabad sugid iyo booliiska oo ay ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen weerarkii ka dhanka ahaa musharaxiinta ugu dambeyntii midowga musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa dalbaday in heshiisyada doorashooyinka ee la gaaray loo helo damaanad qaad caalami ah in doorashada madaxweynaha lagu qabto goobtii ay ka dhacday 8 Febraayo ee 2017 ee uu ku soo baxay madaxweyne Farmaajo shuruudaha ay soo bandhigeen xubnaha midowga musharaxiinta qaarkood ayaa waxa hore u soo bandhigay maamulka Puntland waxaana ku jira qaar adag oo laga yaabo inay ku adkaato fulinteeda madaxtooyada Soomaaliya wararka dibadda naga soo gaarayna waxaa ka mid ah daawadayaal ninkii u dambeeyay ee ka noolaa qowmiyadda Jume ee dalka Brazil ayaa u dhintay fayraska corona taasoo soo afjartay qowmiyadda horaantii qarnigii 20aad ka koobnayd kumanaan qof Aruka ayaa ahaa ninka kaliya ee ka haray qowmiyaddaasi waxaana la rumaysan yahay in daadiisu ay u dhaxaysay 86 ilaa 90 jir qowmiyadda Jume oo marcaan ka ahayd gobolka Amazonas ee koonfurta dalka Brazil ayaa xasuuq ka dhana qowmiyaddaasi cudurro dilaa ayaa xubnaha Juma ilaa markii dambe uu ka soo haro qoyska Aruka oo kaliya waxaa murug weyn ku haysay sida ay qowmiyadiisu u badnaan jirtay iyo sida uu ku noqday ninka kaliya ka hadhay qowmiyadaasi ayuu sheegay Gabriel Ujida oo wax ka qoray nolosha qowmiyadaasi Aruka ayaa dhalay 3 gabdhood maadaama aysan jirin rag ka hadhay qowmiyadooda oo guursan kara gabdhahaasi waxay gabdhahaasina u dhaxeen niman u dhashay qowmiyadda Uru ee dalkaasi Brazil sida caadada uu ah qowmiyadaha ku nool deegaanadaas caruurta uu awowga u yahay Aruka waxay ku xisaabsan yihiin qowmiyadda aabahooda balse si aan horey loo arag ayaa qaar ka mid ah caruurta uu awowga u yahay Aruka waxay go'aansadeen inay wada sheegtaan qowmiyadaha Uru iyo sidoo kale Juma oo ah qowmiyadda dabargooday
waxaan sii wadi doonaa dhaqankii awoowayaashin ayuu yidhi Bitaiti Uru oo 20 jira. wiil kale oo ilmo habreed yihiin laguna magacaabo Kaimbu ayaa qaatay go'aanka mid la mida isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi ma doonayn inaan hilmaano halgankii qowmiyadeena waan ku faraxsanahay halgankii ay galeen awowgay iyo hooyooyinkeen waan sii wadi doonaa. Kaimbu ayaa magacyadiisa ku daray midka awowgii hooyo waxa uuna hadda ku hawlan yahay sidii aqoonsigiisa loogu qori lahaa magaca Kaimbu Juma. Ifeindi Bandara oo u ololaysa xuquuqda qowmiyadaha qadiimiga ayaa sheegtay in tallaabada uu qaaday Kaimbu ay tahay mid aan horey u dhicin deegaanadaasi. wixii ka dambeeyay 1940 qowmiyadda Juma ayaa waxay bartilmaameed u ahayd dad doonayay inay boobaan khayraadka deegaankooda sida ay sheegtay Professor Luciana Franza oo ka tirsan jaamacadda federaalka ee galbeedka Bara. xasuuqii u dambeeyay la diiwaan geliyay ee ka dhan ahaa qowmiyadda Juma ayaa dhacay 1964 xilligaas oo ay ku soo duushay qowmiyada ay daris ahayeen oo dishay tumanaan ka tirsan raggii Juma. Ifeindi Bandara ayaa waxa laga naxo ku tilmaantay in ninkii u dambeeyay qowmiyadaasi uu dhintay cudurka COVID-19 waxay ku eedeysay dawladda Brazil inay ka gaabisay ka hortagga in cudurku uu gaadho tuulada Aruca. waxay sheegtay in dawladda looga baahnaa inay baaritaan ku samayso dadka gelaya tuuladaasi. waxaan deganahay meel aad uga fog magaalada safarkeenu ma badna ma ahayn in cudurkuuna soo gaadho dawladdu ma aysan qaadin wax tallaaba waa mas'uuliyad darro ay samaysay xukuumadda ayuu yidhi. COVID-19 ayaa si weyn u saameeyay qowmiyadaha qadiimiga ee dalkaasi sida uu sheegay xogayaha gaarka ee caafimaadka dadkaasi. shucuubtaas oo ka kooban 896,900 ayaa waxa uu cudurku ka dilay 572 qof. ururka Habib oo si madax bannaan ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha qowmiyadaha qadiimiga ee Brazil ayaa sheegay in tirada dhimashada ay intaa ka badan tahay oo gaadhayso ilaa 970 qof oo u badan dadka da'da kuwaas oo la dhintay taariikh iyo dhaxal soo jireen. daawadayaal waxaynu soo gaarnay gunti gabagabadii gunaanadkii warka oo habeenkan caawa idinkaga imanayay TV-ga madax bannaan ee Ray TV xaruntiisayna ku leenahay magaalada Boorama. warka waxaan la socodsiinayay anigoo ah Cabdi Maxamed Cali. intayna ku kulmi doono warka xiga aniga iyo dhammaan asxaabtii kala qayb qaadatay warka waxaan idinkaga tageynaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wa barakaatuh.